وابن ديدنا بكره شيء صار وقلبه كمان waxay ahayd sababta lagu diiday waxa in afarta shirkadood ay tartamaan oo la bidgareeyo waxa la hayirgeliyay company caalami oo niiraas loo oran jiray oo inaga eegay heshiisyada caalamiga iyo qaababka loo galo waxa loo yeeray loo reer Soomaaliland oo qaran dalka Ingiriiska joogay qaran Djibouti joogay dabadeedna waxa ay in afarta company la tartansiiyo ka ugu haboon iyadoo afar qaybood laga eegayo aqoontiisa awoodiisa dhaqaale farsamayaqaanada uu haysto tamaamul iyo heer meelaha laga eegayo cidii ku guuleystayna arinta la siibay ahayd marka saas ay ku bixilada maadsantay marka labaad xukuumadda laftigeedii baan isku raacsanayno waxaad ogeydeen saxaafadahan aad warinayseen maxamed xubnihii xukuumadda ku jiray xildhibaanadii xisbiga ka soo baxay ku jiray oo si iskhilaafsan arintan uga hadlaya ama isu marinaya dacaayado iyo dagaal qaarkoodna ay ka soo horjeedaan qaarkoodna ay taageersan yihiin taasina waxa idin cadaynaysaa laba mid uun inay noqoto inaan kala dambeyntii law and orderkii uu lumay oo aan xukuumaddu dadkeeda xukumin markood iyo in aanay ka daacadahayn arinta tan iyada laftigoodu uu ay doonayso political gains wuxuuna inay tiraahdo wada hadallaan furay qolyahaasaan la hadlayna inay arinta tahay waayo iyada wasiiradeeda arinta ay ka soo horjeedaan xukuumaddu kama adkaysan karteen arinta iyada ahna waxaanu runtii ugu baaqaynaa xukuumadda inay haddii ay arintaasi dhab ka tahay ay iyadana ay runtii talaabo adag ay ka qaadato go'aan muuqda ay ka qaadato ayna qiimayso kala duwanaanshaha aragtiyaha ka jira gobolka laftigiisa oo mid walba sidiisa ay u xalliso haddii ay tahay qolada khaatuma hadday noqoto odayaasha dhaqanka hadday noqoto deegaanada kale ee iyagu laftigoodu iyo arrintan saameynta ku leedahay inay si wanaagsan oo deganaansho leh oo caqli leh oo daraasad leh inay ku waajahdo baan arrinta iyadana u soo jeedinaynaa arrinta afraad ee iyadana aan ka hadlaya waxa weeye oo had iyo jeer ay bariyahan soo kordhisay arrinta caburinta saxaafadda oo runtii aad moodo xukuumaddan oo xilligii ay mucaaradka ahayd in aad uga hadli jirtay maxaan idhahdaa ay aad xadka uga baxday ama ha noqoto jaraa'id la xidho ama saxafiyiin la xidho waxaa laga yaabaa nin saxafiya ba hadda wuxuu xidhay doctor Coldoon nin samafala ahaa in la yiraahdo ma xatagtay Muqdisho ama mararka haddii si kale loo dhigo يعني waxaad ku farxday qaab maxaan raday hebel baa meesha ku soo baxay baad ku farxday xukuumaddu aynu ognahay dhaliilada dul hoganaya oo heshiisyada ay gashay cidda ay u gashay iyo cidda u saxeexday iyo cidda hawsha hormuud ka ahayd in xukuumadda xamar ka jirta ay tahay aynu isloogno dhamaantan aynu ka wada dhigsanay in qofka arrimaha noocaas oo kale lagu xidho marka saxaafadda runtii ka difaaci maayo wixii eediya dhaliila ay leedahay xukuumaddu iyada laga rabtaa sharcigii kala xadayn lahaa iyaga iyo saxaafadda iyadu arinta iyada ah soo bandhigto oo soo gudbiso waana lagu la shaqeynaya laakiin inay arintu ku socoto wareegto lagu xiro joornaalka qof doonistiina inay ku socoto oo markii ay doonaan qofkay doonaan ay xiri karaan qofkay doonaanna ay sii deyn karaan oo oran karaan waxa lagu sii daayay saamaxaad qofku waa inuu yeesho xuquuq u yeeshaa haddii uu dambi galayna loo maraa sifaa sharciga loo maraa waad ogeydeen dhawaanaha kan xubnihii saxafiyiinta la xiray waad ogeydeen kuwa hadda u xidhay waad ogtihiin arrinta iyada ana waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiso saxaafaddu bacarkana waa dhaliilaysaa xaq bayna u leedahay inay dhaliisho waxa la wixii dhaliil aanu leenahayna waanu qaadanaynaa wixii ay nagula gafaano waanu iska difaacaynaa wixii sifa sharci loo mari karana sifa sharciga aanu u maraynaa oo hay'adaha sharciga baanu u maraynaa xukuumadduna intaasay xaq u leedahay xaq u leedahay xaq gaar oo iyadu u leedahay inay iyadu gacanteeda kaga aargoosato xaq uma laha hadday taasi sii socoto de waxay noqonaysaa aniguna inaan cabdirashiid gacanteeda kaga aargoosan karo marka uu igu sameeyo wax ila xuquuq siman baanu leenahay dastuurkuna siinaya inaan gacanteeda ku aargoosan karo arrintaasna runtii taas aan ka hadlayaa ugu dambeyntii waad ogeydeen xisbigu wuxuu ka hadlay arrinta dekada arrinta maxana saldhiga waad ogeydeen dekadii wixii inaga soo noqday buuqi ka dhacay waad ogeydeen marka koowaad ma jirto ilaa iyo haddeerto heshiis qoraal ah oo soo gaadhay hay'adihii dawladda ee markii hore la lahaa waa memorandum of understanding ama MOU oo heshiisyada waa la keeni karaa heshiis yimi oo dambe oo ama saldhiga ama dekada ma jiraan marka koowaad marka labaad ma jirto wax maalgelin oo muuqato aynu aragnay oo dekadeeni ee la gelinayo marka saddexaad shaqaalihii iyo ballanqaadadii la sameeyay shaqaaluhu sidoodii noqon doonaan waad ogeydeen idinka tibinayay dhibaatadii ka dhacday iyo shaqaalihii qaabkii loola dhaqmay oo ay la gacan ka hadal ay arrintii gaadhay waxaad kala ogtihiin
oo hadda dee ruumarska dadku ku jira ay ka mid ah in arrintii saldhigu ay nabadgelyo gacan biyoodkeennan oo ahaa runtii dee nabadgelye ahaa ay dhibaato kusoo kordhisay oo ay dadka qaarkii eedda saarayaan arrintaas saldhigu inay tahay inkastoo aynaan caddayn u hayn wixii aynaan caddayn u hayna ku dhiirashadoodu runtii aanay ficnayn laakiin qayb bay ka noqon karaysaa iyadana ood ogtiin dad Soomaaliya oo leh Somaliland u badan in lagu waxyeeleeyay xukuumadda runtii roolkii iyo doorkii lahayd ayaan ka qaadan arrinta iyada ah runtii waxyaabaha kale aad u dhaliilayna waxaa ka mid ah dekedda maalgelinteeda dhinaca servicekii ay qaadi jirtay dawladdu markay ugu yaraato bishii waxaa ka soo bixi jirtay lacagta 2 milyan iyo bara ilaa 9 milyan oo dollar ka soo bixi jirtay marka sanadka la isu geeyo 108 milyan maalgelinta layna leeyahay dekedda la gelinayo waa 32 milyan marka waa maatro 4 sanadood bay ku soo baxaysaa lacagta loo baahan yahay in lagu maalgeliyo dekedda markaanu si maarta runtii cilmiga aynu u soo bandhigno marka xukuumaddu waa inay caddaysaa dakhligan maanta lagu wareejiyay shirkaddan DP World ee ah inay qaado iyo servicekii oo waliba iyo haday doonto si alla sida ay doonto markay doonto ay kordhin karto waa lacag service oo golayaasha qaranka maraynin wax muuqdo ay dekedii ka qabanayso oo dhismeen aanay jirin arrinta iyada runtii waxaanu jecelahay in xukuumaddu warcad ka soo saarto aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mahadsantahay horta waa run xukuumadda ka mid ahaa waliba muddo 5 sano iyo 3 bilood ayaan xukuumadda ka mid ahaa waxaan nina ka qarsoonayn xilligaa aanu joognay waxyaabo badan oo maanta jira inaanay jirin tusaale markaan kaaga soo qaato waxaan ka mid ahaa guddigii wada hadalka la galay DP World 15 bishii shanaad 2015 afartii shirkadood aanu la hadlaynay waxay ahayd shirkadii ugu liidatay marka loo qiimeeyo waxay ahayd shirkadda Polare shirkadda MSC iyo shirkadda Prime Africa iyo shirkadda DP World oo waliba markaa magaceeda bedeshay oo aanu kula hadlaynay waanu ku soo kala kacday shirka waanu ku qanci weynay heshiiskii iyo waxa ay soo bandhigeen iyo proposalka ay keeneen waanu ku qanci weynay marka waxaan cadeynayaa inaanay de markaa jirin oo tii anigu aan ku qanci waayay sanad kadib 2016 la soo bandhigay sifa aan sharci ahayn lagu meel mariyay marka koowaad tasalligo kale damage oo dhibaato jirta ma yahay resource-ka dalka lama wareejin way dhici kartaa waxyaabaha qaarkood oo kale tan imika halkaha goostay ah musuqmaasuqan iyo boobkan hadda cid waliba warinaysa warday sida uma jirin horumar baa dalka ka socday waxaad moodaysay xukuumaddu markii aanu anagu meesha ka tagnay inay uun ku itaashay si ay ula dagaalanto cidii ka soo horjeeda wixii dhaqaale ahaayeen horumar u isticmaali jiray inay u isticmaasho political fund iyo in dad gaar lagu naasnuujiyo iyo arrinta kale oo ah sideedaba xukuumaddu waqtigu sii dhamaanayo dadku way ka jeestaan waxyaabo badan way ka jeestaan waxaanay u jeestaan oo dadka qaarkood u jeestaan waliba inta ma oran karo xukuumaddu waa wada maxamed ku wax ku jirtaa musuqmaasuq way ku jirtaa ama dhibaato ku jirtaa dad badan oo nadiif oo laga helaya marka oo iska yimaada xilliyada noocan oo kale laakiin dhibaatooyin maanu dhibaato la'ayn oo qofka shaqeynaya dhibaato way ka hor imanayaan caqabado way ka hor imanayaan uu fulin kari waaya dhibaatooyinka iyo baahiyi jiray laakiin sida aan ku sheegay kuwaasi ma jirin kuwa wada hadaladu hadarta iyo aan dhaliilaya qaabkooda ma jirin saxaafadu sidan hadda ay u jirto ee uma jirin laakiin walaga inay wax ka jireen Soomaad garan mar walbana waxaad ogaataa ninka wasiirka ay meesha ka shaqeynaya wuxuu ku shaqeeyaa siyaasadda madaxweynaha ee markaa jirta marka waxa jirta laba u qaybsantaa mid collective oo la wada yeelanayo iyo mid gaar u noqonaysa hoggaanka markaa jira markastana waxa badanaysa hoggaanka gaarka oo soo maantanta haddii xukuumaddii waa waxyaabaha ka hadlayay marka arrinta nabadda ka hadlayeen ay 10 af inuu wala hadasho ilaa waxyaabaha u baahanay waxa weeye inay cadaadaan xukuumaddu waxa ay heshiisyada ay gelayso oo koow bulshooyinka Soomaaliland u cadaadaan number 2 inay si sharci u maraan golayaasha sharciga ah inta kaliya aynu ku leeyahay horumar ma diidanin dekedda berbera waxay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay sida ay hadda tahayna inagana inaguma filla marka mana fiir garay karo wadamada deriskeena kama fiir garay karo oo dhaqaalaheena kuma kobcin karo waa ogol taw diyaar baan roona laakiin waxaynu rabnaa habka loo marayo waxaynu isku haysanaa waa dhaqanka iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee doctor wixii diblomaasiyadda iyo siyaasadda dibadda dalka inuu xil saaran uu leeyahay heshiis ma jiro haddana golayaashii aad ogtihiin oo taagnaydeen wixii ka dhacayay arrinteenu ka hadlaynaa waa taas oo waxaynu leenahay war maamul xumaa jirta war waxa jirta awood oo si khaldan loo isticmaalayo war waxa jirta naasnuujin cid gaar ah lagu naasnuujin baraarihi iyo dhaqaalihi dalka taasaanu ka qaylinayna oo leenahay mustaqbalkaaga iyo masiirkaaga aan u hadlaynaa marka taasaanu ka hadlaynaa oo naxsanta
كده كده marka marba maalinba kii taagan aynu ka xoogaaga muxuu ahaa xaqulqalinka laga qaadanay miya sax noqonaya mise waxa sax noqonaya labadooda hadii la oran karo mid ba inoo dhib yar inaga waxa inoo dhib yar ka dekada waayo dekada hadii wixii ala qalayno manage gareeyo leeyahay ugu maamulana damage-kiisa dhibkiisa uu ka yaraanaya marka ma adsantii